xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo ay tahay deegaan doorashadiisu ayaa kormeer iyo wax ka ogaanshada xaaladda ay ku sugan yihiin safar dhinaca dhulka ku tagay maantay deegaanka Balcad ee gobolka Galgaduud oo 45 kiiloomitir u jira caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. xildhibaanka oo safarkiisa ay ku weeliyeen madax kale oo ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa kadib markii halkaas uu gaaray waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna uga hor yimaadeen afaafka hore ee deegaanka Balcad. maamulka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si aan hore looga baran u soo dhaweeyay xildhibaanada deegaanadooda dib ugu soo laabanaya muddooyinka ugu dambeeyay. liibaan axmed doore gudoomiyaha deegaanka Balcad oo ku hadlayay afka bulshada deegaanka iyo xildhibaan Faysal Axmed Cabdulla Faysal Gacmi ayaa ugu horeyntii goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin howlaha kuurgalka ay muddooyinka ugu dambeeyay deegaanada Galmudug oo ka waday xildhibaan mahad maxamed salaad. xildhibaan mahad waa ku soo dhaweynaynaan soo dhawaaw mudane xildhibaan waa ku sugaynay waad noo timid deegaanka Balcad deegaan ballaaran oo aad u weyn waaye dadkii joogana waa kuwa halkan ku soo xaadiray kuguna soo dhaweeyay Balcad waxaad u keenteen matoor wixii ka dhiman in la dhamaystirana waa codsanaynaan. waxaa ku yaala iskuulka waxbarashada oo ka xiran deegaanka Balcad wuxuu uga xiran yahay waa laga dhisay uu ka dhisan yahay wuxuu uga xiran yahay mushaarkii macallimiinta oo iska bixi waayeen. waxaan ka codsanaynaan baahida Balcad ka jirta adoo u dhashay deegaanka iyo dadka adoo lana dhashay una dhashay deegaanka baahida ka jirta inaad qaado ood aruursato oo wixii aad ka kari karto iyo wixii aad u keeni karto in aad ka taageerto ayaan ka codsanaynaan. waxaan isku dayaynaa inaan ku dadaalno in la dhiibo mushaarka macallimiinta iskoolka dhigi lahayd waayo waqtiga iyo intii la soo maray hadda adinku iswadeen waxaan u malaynayaa ama kuwa waaweyn ha noqoto ama xildhibaan duureedyadeeda soko ha noqotee xaaladda dhabta oo dadka kama annaa warhayn jirna awal laakiin hadda kabacdi waxaa muuqata in ilaahay uu nasri keenayo sidaan ay u bilaabatay inay u socotaan rajaynayna adinkuna faatixada noo soo mara insha allahu tacaala waana ku mahadsantihiin soo dhoweyntiina. xildhibaan mahad maxamed salaad oo ugu dambeyntii meel fagaara bulshada kula hadlay ayaa u ballan qaaday inuu dhammaystiri doono baahiyaha kale ee bulshada deegaanka u soo bandhigtay oo ay ka mid tahay helitaanka xarun caafimaad iyo sidoo kale mid waxbarasho. runtii sharaf iyo karaamay noo tahay maanta inaan idiin nimaano oo aan deegaanka soo booqanno aragno baahiyaha ka jira hadday tahay mid caafimaad iyo hadday tahay mid waxbarasho iyo adeegyadii kale bulshada. maanta waxaan idinkugu nimid ceel meeshaan laga qodana inaan soo booqanno dhagax dhignana qaybaha ka dhiman sidii ay u dhammaystirmi lahaayeen haddii allah wada la ogolaado. markuu dhammaystirmana insha allahu waa idinkala soo qaybgeli doonaa furitaankiisi haddii allah wada la ogolaado. runtii waxaan rabaa inaan si gooniya idinkugu mahad celiyo deegaanada aan ceelasha ka fulin saddexdaa hadda uu ceelkaan ugu dambeeyay Balcad horta waxay noqotay meeshii ugu sahlaneed. runtii sharaf iyo karaamo ayaan idinkugu haynaa dhiirigelinayna noo taa kuwa kaloo badan inaan keenno sida adeegyada kale hadda aad ka hadlaysiin insha allahu waan idin keeni doonaa wixii karaankeenna iyo wixii dowladda dhinaceeda ka suuragalaba. xildhibaanka ayaa maanta intuu halka ku sugnaa sidoo kale wuxuu dhagax dhigay haanta kaydka biyaha maadaama bulshadu ay codsadeen in ay arrintaasi si weyn loogu istaago si wax looga qabo lahaa. muddooyinka ugu dambeeyay xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa ku sugnaa deegaanada Galmudug wuxuuna sheegay sababta uu joogaa inay tahay inuu wax badan ka ogaado xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaan doorashadiisu ay tahay Galmudug. Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Balcad.